Assalaamu calaykum. 75 in ka badan waalidiinta waxay soo galiyaan sawirada carruurtooda caalamka wajiyada badan ee internetka. Halka 10 waalid kasta 8 ka mid ah ay jiraan dad aysan aqoon shakhsi u lahayn balse falowgareeya la socda fiirfiiriya xogtooda si joogtaana u falowgareeya. Kaalaya maanta idin baro waalidiinta gabar 9 jira gabadhaas lagu magacaabo Ella. Gabadhaas oo waalidiinteedu had iyo goor ay sawirada soo dhigaan caalamka baraha bulshada waliba iyagoo ka warhayn ama aan ka feejignayn saamaynta ba'an ay ku yeelan karto mustaqbalka gabadhooda iyagoo aan waliba wax war ah aan ka hayn. Hadda ayaynu xaqiiqda dah uga faa'iideynaa. Waxaynu samaynaynaa Ella oo qaangaar kaliya anagoo adeegsanayna hal sawir iyo mishiinka garaadka macmalka oo isku keenay. waana tan Ella oo dhanbaal u sii waalidiinteeda. Hey mom, hey dad. waan idin salaamay hooyo iyo aabe. waa anigii Ella. dabcan waxaan ahay koobi digital ah oo nafsadayda taqaaniin ah. waa anigii oo da'i korortay. waa cajiib waxa tiknoolajiyadu samayn karto miyaysan ahayn. waxaad u baahan tahay oo kaliya dhowr sawir sidii kuwii hore u soo dhigteen baraha bulshada oo kale. halkaas oo laga qaadan karo lana adeegsan karo waliba qof walba u furan. waan ogahay sawiradan idinka waxay idin yihiin xasuus oo kaliya balse dadka kale waxay uga dhigan tahay xog aad qaali u ah. balse ani ahaantayda waxaa suurtagal ah in ay horseedo mustaqbal aad u foolxun. mustaqbal xadi karo jiritaankayga waliba si fudud. mustaqbal ay suurtagal tahay inaan xabsi u galo dambiye aan waligay gali doonin. ka fakar caalam sharaftaydii oo dhan sidaas basiidka lagu burburiyay ama ay suurtagal tahay in codkayga la koobiyeeyo si idinka lagu khayaamo. hooyo dib ayaan ku jiraa fadlan lacag ii soo dir please. ma raba inaan noqdo sawir lagu shactiraysto ama qof walba iskuulka ugu arka oo ugu jeesjeeso. naarad sidaas ku dhan wax isku mafashay yahay dhimatay. ugu dambeyntii dhabtii ma jecel inay sidaan wax u dhacaan hooyo iyo aabe. wax walba oo online ka soo gelisaan waa raad aan tirtirmayn oo digital ah kaas oo inta aan noloshayda noolahay aanan iga hari doonin. xogtan waxaan idinkugu sheegayaa waxaan ogahay sababtoo ah inaad jeceshihiin oo inaan weligiin samayn doonin wax aniga nafsadayda dib ku gaarsiinaysaan. So please mom, please dad. sidaas daraaddeed hooyo fadlan aabe xogteeda khaaska ah ilaaliya please. jaalle soo cajiib maahan. haa xogta carruurteena waa laga maarmaan. carruurta dhashay kaliya maahan kuwa kula dhashay kuwa dariskaaga kuwa qof walba oo suurtagal noqotay inaad sawirkiisa maalin qaado ilmo ah inaad xogtooda ilaalino waa wax runtii laga maarmaan. carruurta kaliya maahan badbaadada dhammaanteen nafsadeena ee online-ka annaga ayay naga bilaabataa. fariintan af Soomaaliga kugu soo gudbiyay waxa kanaalkeeda YouTube-ka soo gelisay shirkadda Jarmalka ah ee Deutsche Telekom kaasoo ugu talagashay inay taxadar iyo feejignaan dheeraad ah muujiyaan macaamiisheeda ku xiran fahansiisana khatartii dhibaatada ka dhalan karta sawiradan iska sayrinayno ee cadhalaankeenna iyo walaalaheena iyo carruurta nagu hareeraysan. dabcan maraan sida u sii fogeyn ayay ahayd marka Mark Zuckerberg oo ah maamulaha ugu sarreeya shirkadda Facebook oo labadiisa gabdhood sawir la soo galay aad u qurux badan balse waxaa la yaabaa inuu sawirka uu wajigooda saaray sawiro emoji ah. dabcan si u qariyo wajigooda aan loo arag. marka jaalle marka labaad ee aad soo dhigaysid sawir ilmo walaalka ilmaha dhashay wax walba kugu hareeraysan dhacdadii Ella ee dhanbaalka u dirtay waalidiinteeda iyo sawiradii Mark Zuckerberg waxay ku horeyn tusayay mar labaad ka fakar. Assalaamu calaykum.